السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سلامتي دمان خيارتي كورن كنالكين برمانتا maanta waxaynu wadaa fideoga inta sancaad oo aynu nin la dhaho Chris oo Amerikaana oo inta sancaadiye caalamiga oo weyn laga yaqaan caalamka aynu fashilin doono afarna sancaad uu leeyahay iyo sidii uu sameeyay insha Allah qayb badan ba ka soo sameyn doonaa tan waa qaybteedii koobaad markaa aynu wada galno muuqaalkeena maanta fadlantiin inuu geligelin muuqaalkeena maanta haddaad nagu cusub tahay subscribe saar waxaan ku guda jirnaa wadadii kunka subscribe like tana naga ilmaamin aad iyo aad baan u mahadsantahay. muuqaalka koobaad waa inta sancaadka koobaad waa inta sancaad uu gabadh ka qaadayo shilin kadibna ku hornay gabadha shilinka saxiix kadib shilinka markay saxiixeeda ku qorato uu liqayo kadib markuu liqo uu dadka tusayo afkiisa maran kadibna la arkay gacantiisa shinkii ka soo muuqday waliba suu wado gacanta la raacayo suu wado intuu jeexo u soo saaray wallahi abtar umaleynaya laakiin fikrad yar ayuu ku sameeyay balsuu sameeyay anaa ku faahfaahinaya horta ugu horeyn ninkani hal shilin ma isticmaalayo waa laba shilin kan koobaad uu liqay waa mid iska caadiya oo macdani ma waa mid lagu talagalay liqitaanka oo aan wax dhibaato u keenin kan labaad kale gacantiisa ka soo baxayna waa mid mar hore uu geliyay gacanta markuu soo wadana ma horta waxaan gacantiisa waa bahal sinaaciya oo lagu talagalay oo aan gacantiisa caadiga ahayn markaa bahalka yaree madow ayaa xarig ugu xiran yahay bahasha kadibna remote baa lagu hagayaa remote-kaas ayaa lagu wadayaa qof kamid ah dadka caawiyaashiisa ayaa caawinayo remote-ka ku caawinayo ku wadaya ilaa hadhowna markii bartaas soo gaadho uu jarayo waxaan dhigiisi ma sidaan lagaaga shakiin dhig yaroo dhig caadiga aan ahayn ayuu geliyay meesha ku shubay kadib markuu jaray ka soo baxay markaa taasina waa saan intuu ka cadeeyo inaanay labada bahal islahayn laba shilin kala adeegsaday barilaag shilinka markii hore luqay iyo kuwa markii dambe soo saaray ina fahanti inaad aragtaan malaynaya waliba gacanta yar ee madow uu xiran yahay markasta uu inta sancaadkan sameynayo uu sita markasta uu sameynayo uu sita taas waxay cadeynaysaa in gacantan baasha yar ay ka caawinayso xarig ugu xiran yahay inta sancaadka labaad wuxuu ka codsanayaa gabadh inay u dhiibto labisteeda khaaska kadibna labisteeda markay u dhiibto gacanta ayuu dusha ka marsan labistii gabadha ayuu gacantiisa dusha ka marinaya kadib markuu ka mariyo wuxuu ku horanayaa gabadha labadada gamcoodkeen kadibna isku laab markuu isku laabo tii dusha kaga taalo sibiriya ayuu baabiinaya kadib wuxuu ka horanayaa way kuu soo wareegtay kadib way kala furaysaa way arkaysaa taariikhda loo sameeyay muuweyna waa samayn kartaadba asxaabtaadana waad ku samayn kartaa horta ugu horeyn markuu labista ka qaato farihiisa mid ka mid ah ayuu labista marinaya markuu labistii mariyo markuu kala dooranayo ayuu saa dhab u taabanaya kadib bartaas ayay kaga baaysaa markuu dusha ka baabiyo taasina dee taas waa iska fudayd inta sancaadka saddexaad waa inta sancaad uu ka dhex baxayo albaab sidee adiguba daawarto marka hore video albaab ayuu ka dhex baxayaa macdaniya oo wuxuu isku dadayaa maro waa laga tijaabinaya albaabku inuu albaab caadi yahay baasha dhowr sin gudaheed ayuu kaga soo dhex baxaya albaabkan waa albaab lagu talagalay oo labada bahalooda sare kor u baxayaan inta dhaxanaa ay gudaha galayso kadibna markuu kasoo dhamaado si automatic ahaan dib isku soo noqonaya taasina waa saas inaad fahantay ayaan u malaynaya inta sancaadka afraad waxa weeyaan inta sancaad iyadoo laga duubay kaamiradii inta mareer lagu dido uu isqarinayo labadaa nin ayaa intay marada kor ugu qaadaan maradaas ayaa marada inta ka dejiyaan baa la waayaya taasna si ku dhacday macquul u tahay tanna waa iska basiid waa easy adoo samayn karta ugu horeyn horta xifdi wax kasta meesha jooga wax kasta wuxuu leeyahay hard amba dee haru gaara siiba wali waxaad xifdidaa
ninka xagga dambe taagan ee marada koodhka akhtarka xidhan iyo bahasha xifdi kadib markii laysku soo noqday eeg harkii suu isku bedelay oo harkii ma joogo taas waxay caddaynaysaa in meesha muraayad la dhigay oo muraayadda marka surada bahasha kor loo qaado marada muraayadda hoos geliyo bartaas labada bahalood hoostooda ayaa muraayad la dhigay waxaynu ka caddaynaynaa weliba dee ninka markii hore halka dambe taagan wuxuu leeyahay har u gaara iyo bahasha qashka ag taalaaba har bay leeyihin kadib marka dambe laisku soo laabto ninku marada laga sii daayo harkii uu baaba-aya oo ma joogo daadmiis waxa weeyaan in meesha muraayadi taalo waxaan weli kusii caddaynaynaa dhulka eeg markaani muraayadi oolin eeg marka muraayadda la keenanayo farq weyn baa udhexeey taasna dee waa iska easy maanta qaybtii koobaad ee Christ intaas aynu ku joojinaynaa fadlan haddaad ka heshay muuqaaladan like-ta nagu dhiirigeli subscribe-tana naga hilmaamin maadaama dee halkan laga soo gaadhay kumbajuguna waa halkiina aad baan idii salaam